arinta qabyaaladda hogaamiyaasha cusub ee imaan doona waxaan u sheegayaa qabyaaladda waxa Soomaaliya maanta 22 sano soo dhaafay waxa maanta meeshan joojiyay waa qabyaaladda waay qabyaaladda waxay horseeday in dad badan oo xuquuq lahaa xuquuqdoodii laga qaato qabyaaladdu waxay horseeday in dad badan oo shaqooyin awood u lahaa inay sameeyaan dad kale shaqadoodii laga siiyay qabyaaladdu waxay horseeday in dad badan oo Soomaaliyeed maanta aysan dalkoodii ku soo laaban karin marka waxaan leeyahay in qabyaaladda aan iska dhaafno dawladda cusubna ee imaan doonta ay ka shaqeyso si dadka Soomaaliyeed ay mataqaana si sinaana wax ugu qaybin lahayd oo arinta qabyaaladda mataqaana aad ula dagaalami lahayd annagana ka dhalinyaro ahaan waxaan bala qaadaynaa in mataqaana aan arintaas aan xoog saarno oo dhalinta Soomaaliyeed iyo dhamaan dadka shacabka Soomaaliyeed ku baraarujino in laga tago qabyaaladda